kala calaf waa guurka sax haddana at the same time labada qof hadday isfahmi weeyaan waxa waaye de waa lagu kala yaca ilaan guurkan ilaahay banay furiinkan ilaahay waa banay marka caawo hal waxa idin xaq yani idin ogeysiinaya waxa weeyaan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبتي كحرن جنالكيga Ayush bint Rashid waa anigo walaashin Ayush bint Rashid janaalka aad naga daawaneysana waa isla Ayush bint Rashid saaxiibayaal maanta waxaan idin wadaa arrin social media qabsatay halka tag waa rashka boy WhatsApp tag waa rashka boy TikTok tag waa rashka boy Instagram waa rashka boy Facebook waa rashka boy rashka boy iyo xabso ma kala tageen maxaa xaqiiqa qof walba uu ka hadlay balse aniga waxa u gaabnaay shib inaan ka dhaho ilaa xaqiiqada aan ku ogaado sababtoo anaga rashka boy waxa waaye iyo xabso meeshaan ka baranay xaqiiqadana ma ogaan karno marka in lagu dambaabo waa laga fiican yahay dada caynaya rashka boy dada maxaydaan waa ku xiranaa wallahi lamaanaha aad u jeclaa waaye ilaahay isku soo celshaa leeyahay wax dhiba ilaahay u soo dhaweeyo insha Allah farxada u rajeena wallow qof walba asagoo ogya wixii u roon haddana anaga lamaanaha aan adduunka ugu jeclaa wallahi aan ku xirnaa YouTube-kooda waxawiya hadal idinku daalin barnaamijka inta ugu galin waxaan ku codsanayaa asxaabtayga cusub in aad janaalkayga hadii aad ku cusub tahay ay tahay markii kuugu horeysay aad soo booqato Ayush bint Rashid fadlan subscribe saar oo gambaleelka furo kuna soo biir asxaabteena hadii aad hore noola joogtan waxaan ku leeyahay like iyo share iyo comment intaba ha ka iloobin sidaad wada ogtihiin ba nin dheer iyo nin gaaban iyo nin cad iyo nin madow wuxuu ku hayaa rashka boy iyo xabso isfureen rashka boy iyo xabso oo kala tageen rashka boy wal ciyaadu billah ilaahay horta kuwii kala tagay kama dhigo aniga waan taageeraa farxad iyo guul ayaan u rajeynayaa marka sidaas darteed aniga u aamusnaa waayo arin ka naxa ayuu ahay arinkaas sababta uu aamusnaan wax kale ma ahan sababta waxa adiga aad ka nixaysid ama aad dibsanaysid ma jeclid inaad banaanka u soo saartid waayo adiga dhibaa aragtaa inkastoo ay is og yihiin laakiin aan ahaan waa isla jeclaa sababtoo ayaga iskeen barin Soomahan marka insha Allah rashka boy ayaa xaqiiqada ka hadli doono waa la yiri wax ma taraysan ninka ay ku dhacday sheekada waa asaga ayaan ka hadli doono wuxuu asaga dhaho ayaan aaminaynaa okay hadirtaane rashka boy iyo hadalkiisa aan u kala dhaxbaxno السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان ولا الله وإذ السلامي مالو بدوني ذيك الجوكتان وحفلها إنا نود قبطان ولكن رشك بوي إيه قدوم السلام خروح بدن خالي كشكلات تكسر قضي isku soo noqosho wacan waxa filayaa nabad qabtaan alxamdulillah aniga waa nabad qaba marka hore intaan barnaamijkayga u guda galin oo jeedaan calinkeena quruxda badan buluuga mar walba kor ha ahaado caaw waxa weeyaan waa maalinkii xorriyadda aqaani kooda luulyo dhamaan walaalaha hambaliyada iyo farxadda anaga waan ka gudoonay walaalo maxaad noo heesaa rashka waxa weeyaan caawo insha Allah waxa u soo hor fadhiistay kaamirada bariyahan toosha ay u daaran waa la socotaan meel waliba YouTube isma YouTube Instagram Facebook maxalla TikTok waxa weeyaan toosh iyo nal iyo hawlo badan ay u socdo marka waa aamusnaa shiba waa yaabneedana idinka sax waaye anaga ina aamusneen oo isaga aan jawaab ka sugeynay balse dadka qaarna ay ka soo hadlayeen waana runtiis inuu toosh ku sidnaa waa runtiis inuu xanaaqa sababtoo adiga markii lagu nababo waad xanaaqaysaa marka hadirtaan anagoo teemka ku xisaabtameeno fiidiyoga dhama soo qaadan karno muhiimada guud ayaan ka soo qaadanaynaa insha Allah waxa weeyaan hadda ay sheegay jawaab ay sugeyseen baraha bulshada waxa soo wada socotaan caawo bal xaqiiqada iyo ogaada ilaan qofka arinta ay haysato waa aniga Soomaha marka mar walba waxa fiican xaqiiqada in la ogaado oo khaasatan qofka ku dhacay afkiisa laga ogaado marka la ku cilnaa dadka hadda YouTuberada badankooda oo hadda iga soo wada hadleen wallahi dhamaantiin horta marka ilaahay idin dambi dhaafo saafilay waxa weeyaan waa iga been abuurateen waraa hubin maxaa la dhahaa yani faafiseen arintan oo gabadha maxaa la dhahaa oo hadda maalin arkayseen TikTok email YouTube la soo galiyay gabadha aniga garabkayga taagneed oo baby mar dhahay oo kaftankana dhex maray aniga jahil bixinaya arinkaas horta waa been gabadhaas yani aqoon uma lehdin saa hor idinku sheegay wax walba in iska hubsada fiican in isku xadgudub ma fiicno gabadhaas waxa weeyaan walaashay waaye in adeertay waaye gabadha wax la duubaayay oo ilaahay jaceelkiisa dambe waaye wuxuu noo sheegay inay walaashiis tahay marka video dhama soo qaadan karno muhiimada ka soo qaadanayna insha Allah gabadhaas wuxuu noo sheegay inay tahay gabar walaashiis
Wallaahi horta waa runtiis waxa uu ka hadlayaa dadka dhahayo way kala tageen xaqiiq ma u haysaan meesha ku kala tagina ma joogteen waa run waxaadna moodaa weli markuu hadalada sheegay inuu xogaa nervous yahay balse nala daawa asagoo xaqiiqda ka hadlaya marka oo idinka dhan shakini geli waa run anani xaqiijina khilaaf waa jira ani xabso waa isgafsanay abturaynaw weliba khilaaf aad u xoog weyn khilaafkaasna waa caado laba qof kastoo isqabto waxa waa lis dagaala waan la heshiiyaa soo marka khilaafka hadda naga dhex taagan inkastoo khilaaf weyn yahay meesha ku dhamaan doona ilaahay og go'aankan ana iskale anoo nin rag ah soo ana iskale hadee yani khilaafkaas maxaa la meesha ku dambeyn doona hadee noqoto heshiin iyo hadee noqoto bufurin is up to me ana itaala maxaa la dhahaa taas ogaada hal waxna waxa weeyaan ilaa hadda furin ma dhicin ani xabso isma aanan furin laakiin khilaafa naga dhex taagan Soomaalidu waxay ku mahmaadaa war la umbe way ka cakaroon marka war la qaqari iyo war loo kala cararo meesha miyaala caawa rashka boy ayaa runta ka hadlay waliba wuxuu sheegay xitaa khilaafka sababta uu ku dhashay in aysan kala tagin gabadha isagoo waliba ka xun dadku waxay rabaan iska sheegaya mar dhahaya xabso way dhoofta asaga dhoofira waalidka isku diran saama aan aragna marka xaqiiqada dhabta asaga afkiisa inuu sheegay wala waxa weeyaan dadka oo beenta sheegayaan like sababihi isku xanaaqnay oo xitaa ay dhahay ku kala tagteen waxa way waxyaabo badan ay sheegteen been ah like family soo dhaxgalay xabs aabaheeda hooyadeed rashka hooyadiis ay bis no waa been waxaas idinka family-keena ma ka warhaysan waxa weeyaan maya arin family ma aha maxaa la dhahaa waxyaabo badan ama maqla oo badan like xabsa dhoofir rashka dibadda aadir waxaas wax ka jira male hal midna yani waa idin sheegaya oo aniga ragnimadeeda iyo dadnimadeeda u fiicneen walaalayaal midda kale waxa weeyaan fadlan cidna yaa loo xadgudbin ma fahanteen ani horta badankiinan waa mid kale oo idin sheegayaan waxay tahay in dadka lagu xadgudbin aniga ma haya isaga ayaa idin sheegay marka intaas ayaa kusoo gabagabeynaya waxaan idin leeyahay sida iyo amaano Allah insha Allah muuqaalka muuqaala kale xiiso badan inta ku kulmi doono waxaan idin leeyahay sida iyo nabadgelyo